Wafdi sare oo ka socda hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Sodma iyo maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan waaxdiisa gargaarka iyo maareynta masiibooyinka oo ka kooban agaasimayaal iyo la-taliyayaal sarsare ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle. Wafdigan ayaa hordhac u ah wafdi ballaaran oo maalmaha soo socda ku wajahan magaalada Jowhar oo uu hogaamiyo gudoomiyaha Sodma Maxamuud Macalin kaasi oo ay wehelinayaan wasiirada gargaarka ee dowlad goboleedyada dalka. Magaalada Jowhar ayaa la filayaa in toddobaadka soo socda ay martigeliso shir ballaaran oo sanadkiiba 4 jeer la qabto kaasi oo lagu falanqeyn doono xaaladaha bini'aadantinimo ee dalka. Waxaana shirkan soo qaban qaabisay hay'adda gargaarka ee maareynta masiibooyinka ee Sodma. Wafdigan ayaa waxaa garoonka magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle oo uu hogaamiyo agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Hirshabelle Maxamed Shuuriye. Madasha ayaa looga hadlayaa arrimaha bini'aadantinimada la xiriira ee dalka iyo wax ka qabashada arrimaha abaaraha iyo barakacyaasha. Waxaana ka qaybgalaya hay'adaha dowladda, kuwa dowlad goboleedyada dalka iyo hay'adaha deeq-bixiyayaasha iyo kuwa maxalliga ah iyo ururada bulshada rayidka. Sooma aragtaan waa degdeg waa amaano waa fudayd waa hal martaaba oo kaliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah. Dahabay hal taabasho oo kaliya.